habeenimo wanaagsan akhyaarta qiimaha naga mudan meel walbo aad joogtaan halkan waa muqdisho TV saaxiibkii raacokeerana barnaamijka oo idinla socodsiinaya ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulano gaar ah la qaatay taliyaasha ciidamada xoogga dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya saraakiisha ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa galabta booqday xarunta ciidanka xasilinta caasimadda Muqdisho waxayna kula dardaarmeen xoojinta amniga caasimadda. ciidamada xasilinta oo horay howlgal hubka dhigisa uga sameeyay magaalada Muqdisho ayaa hadda hub iyo ciidan lagu kordhiyay si ay ula dagaalamaan waxa ay ugu yeereen kuwa kasoo horjeeda ammaanka caasimadda. ugu horeyn ayaa madasha waxaa ciidamada kula hadlay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed oo sheegay in muhiim ay tahay sugidda amniga isla markaana ciidamada booliska habeen kasta ay qaadi doonaan howlgal lagu sugayo amniga caasimadda Soomaaliya. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Ducaale Islow oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inaan laga gaban doonin cadowga sidoo hadalka u dhigay habeen iyo maalinna u taagan yihiin sidii looga hortagi lahaa weerarka cadowga. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariso oo madasha ciidamada xasilinta kula hadlay ayaa marka hore madaxda qaranka uga mahadceliyay sida ay uga jawaabeen baaqi ahaa in ciidamada xasilinta caasimadda ay ka howlgalaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen kooxaha nabadiidka sidoo hadalka u dhigay. anigoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka Banaadir waxaan uga mahadcelinayaa madaxda qaranka ka jawaabidda baaqini ahaa in ciidamada xasilinta caasimaddu ay ka howlgalaan meelaha ay ku dhuumanayaan kooxaha nabadiidka ah oo lagu sugin inta ay dhib ka geysanayaan siduu hadalka u dhigay. shacabka gobolka Banaadirna wuxuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo hay-adaha amniga xasiloonida magaalada Muqdisho ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in shalay shir magaalada Muqdisho ay ku yeesheen wasiirada iyo taliyaasha ciidamada laga soo saaray in ay la sii dardar geliyo sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. akhyaarta qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walbo aad joogta waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan idin leenahay saaxiibadiina kala gaarsiiya oo share like subscribe intaba noo saaro waadna ku mahadsantihiin daawashadiina annaguna waxaan diyaar u nahay inaan idinla soo gudbino wixii ugu dambeeyay warar ah oo ku saabsan dalkeena Soomaaliya. habeenimo wanaagsan akhyaarta qiimaha naga mudan meel walbo aad joogtaan halkan waa Muqdisho TV saaxiibkii raacokeerana barnaamijka oo idinla socodsiinaya ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulano gaar ah la qaatay taliyaasha ciidamada xoogga dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya saraakiisha ciidamada booliska iyo nabad sugidda